أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan ku jirnaa weli xalinta imtixaankii dowladda 2020 maadada xisaabta qaybtiisii waxaan ku jirnaa calculationka ayaan ku jirnaa part B structured questionskan ayaan xalinaynaa. Answer all the following questions. Ka jawaab dhammaan su'aalahan. Right answer waxaad ku qortaa marka jawaabaha buuggaladka ku jawaab buugga ku qor buugga jawaabaha ku qor. Okay, waxaa ugu horeeya trigonometric ayaa ugu horeeya waxaana saaran 10 dhibcood ayaa saaran. Okay, su-aasha ugu horeysa haddii sin b ay la mid tahay 3 oo loo qeeyay 5 sidoo kale cos b ay la mid tahay 4 oo loo qeybiyay 5 then find waxaad soo raadisaa sin 2b soo saar. yani waxaa haysanaa sin 2 sin b haysanaa oo ah 3/5 cos b na waa haysanaa 5/4 marka then waxaa raadinaynaa sin 2b. sin 2b maxaa lagu helaa marka hore? sin 2b qaacidada lagu hela maxaa waaye? waa double angle-ka. sin 2b maxay la mid tahay? sin 2b waxaan ku helaynaa aan u isticmaalaynaa 2 sin b oo lagu dhuftay cos b. Okay, 2dan waa sharci noo soo qaad 2 lagu dhuftay 2 waxaan ku dhufanaynaa sin b meeqa haysanaa? sin b waxaa haysanaa 3 loo qeybiyay 5. okay, bishi noo soo xir lagu dhuftay waxaan kusii dhufanaynaa haddana cos b meeqa haysanaa? cos b meeqa haysanaa? 4 loo qeybiyay 5 ayaa haysanaa. 4 loo qeybiyay 5 ayaa haysanaa. 4 loo qeybiyay 5. okay, waxay la mid tahay marka 3 iyo 4 isku dhufo meeqa waaye? 12. 12 laba kusii dhufo meeqa waaye? 24. 24 loo qeybiyay 5 iyo 5 oo hooseeya isku dhufo meeqa waaye? 25. 25. okay, sidaas marka maxaa kusoo saarnay? waxaa kusoo saarnay sin 2b sidaas ku xalinay. qodobka ku xiga cos 2b aa raadinaynaa marka. cos 2b maxaa lagu helaa asagana? cos 2b waxaa lagu helaa cos 2b waxaan ku helaynaa cos square b oo laga jaray sin square b aa ku helaynaa cos. okay, cos maxaa haysanaa marka? qaacidadaas isticmaalaynaa. cos maxaa haysanaa? cos b weliba maxaa haysanaa? 4 loo qeybiyay 5. 4 loo qeybiyay 5 square noo saar laga jaray sin b maxaa haysanaa? sin b maxaa haysanaa? 3 loo qeybiyay 5 square noo saar. okay, waxay la mid tahay marka 4 square garee meeqa waaye? 16. 5 square garee oo hooseeyaha ah 25. 25 laga jaray 3 square garee 9. 5 square garee 25. okay, basekooda marka maxaa waaye? waa isku mid hal xab ka qaado. 25 waa isku mid hal xab ka qaado. okay, sareeyahana ii kala jar 16 9 ka jar meeqa waa? 7. okay,
cos 2b asagana maxaa soo saarnay cos 2b waxaa soo saarnay 7 loo qaybiyey 25 7 loo qaybiyey 25 okay su'aashaas intaas u bixinaa qaybta b ima right waxaa qortaa the difference faraqa of sin 7a minus sin 3a as waxaa u qorayna product يعني هذا هو difference waa ka jar waa waxaa u bedelaynaa product rule iyo waa soo qaadateen iyo difference iyo addition waa qaacidooyin waa shan xab waa soo qaadateen marka waa difference waa ka jar waaye waxaa u bedelaynaa product rule marna waxaa product u bedel difference ama sum marka waxaa waaye waa difference u bedelaynaa product okay qaacidadeeda soo qaadano sin 7a oo laga jaray sin 3a product ahaan maxaa noqonaa qaacidadeeda wuxuu noqonaa qaacidada 2 cos a plus b divided by 2 times sin a minus b divided by 2 qaacidadaas isticmaalayna okay 2 cos noo soo qaat 2 waa sharci qaacidada la socotaa 2 cos a meeqa waa marka waa 7 plus b meeqa waa 3 oo loo qaybay 2 times sin a meeqa waa 7 oo laga jaray b meeqa waa 3 oo loo qaybay 2 okay inta maxaa ka soo qaadanaynaa 2 cos labadan isku dar 7 3 isku dar 10 10 labo qaybi 5 cos 5 times cos times aan dhahno sin okay labadan ay kala jar waa 4 labo qaybi waa 2 marka waxaana soo baxay marka product u bedelna waxaa soo baxday 2 cos 5 sin 2 degree soo baxday waa qodobka b qodobka c aan imaano marka intaan iska tirtiri karaa okay qodobka b intaas u gudbinaa qodobka c aan imaano c maxaa lagu dhahay use waxaa isticmaashaa half angle identity qaacidada half angle isticmaal to find saa usoo heshid the exact value qiimaha saxan of tan 15 degree tan 15 degree waxaa soo saartaa adoo isticmaalaya half angle qiimaheeda soo saar okay half angle marka horta maxaa haysanaa tan 15 degree tan 15 degree okay qaacidada isticmaalaynaa marka waxaa isticmaalaynaa waxaan dhehnaa tan half angle isticmaal lagu dhahay a oo loo qeybo 2 ama theta loo qeybo 2 waa dhihi kartaa waxay la mid tahay 1 minus cos theta oo loo qeybay sin theta okay let a maxaa u qaadanaynaa waa 30 degree u qaadanaynaa maadaama ay half tahay 15 wax keenaya raadinaynaa ama 15 labo ku dhufo 30 loo qeybo 2 ka imaada marka okay let a maxaa u qaadanaynaa 30 degree u qaadanaynaa a maxaa u qaadanaynaa 30 degree so marka booska theta
waxaan ku bedelaynaa soddonkaas ku bedelaynaa 1 minus cos theta maxaan ku bedelaynaa 30 degree theta maxaan ku bedelaynaa 30 degree ku bedelaynaa theta okay 30 degree oo loo qeybay sin theta maxaan ku bedelaynaa hadana 30 degree oo la mid ah 1 kan soo qaad minus sin 30 meeqa waaye radical 3 over 2 loo sii qeybay sin 30 meeqa waaye half hal loo qeybay 2 hal loo qeybay 2 okay kadib waxaan dhinaca marka waxay la mid tahay labadan isku dhufo ama hoose 2 ka baabi ku dhufo laakiin iska fududeynayna ama 2 ku dhufo waxaan sameeynaa si loo baabiyo 2 ku dhufanayna meel walba okay 2 hal igu dhufo meeqa waaye 2 minus 2 soo qaad ku dhufo radical 3 waxaa noqonaysaa 2 radical 3 oo loo qeybay 2 oo loo sii qeybay waxay noqonaysaa marka oo loo sii qeybay 2 iyo 2 isla cancel isla bixi 1 waay maano okay kadib waxaan sameynaynaa labadan waa isla baxayaan labadaas iyo labadan waa isla bixinaynaa waxaan ku soo haray 2 minus radical 3 2 minus radical 3 aynu saarto hoose 1 waay 1 kana ha muujinin haddaa rabtid muuji 2 minus radical 3 ayaa noo soo baxday oo jawaabteena u dambeysa ah okay waxaa u gudbaynaa su-aasha ku xigta d ayaan fiirinaynaa d ayaa u gudbaynaa okay